xubno ka mid ah shaqaalaha laamaha dahabshiil ee dalka Kenya ayaa tababar loogu soo xidhay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Xubnahaasi oo isugu jira mas'uuliyiinta iyo howlwadeennada 26 goobood oo ka tirsan degmooyinka iyo gobollada dalka Kenya. Tababarkan ay dhamaysteen mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha laamaha dahabshiil ee dalka Kenya ayaa ahaa mid kor loogu qaadayo xirfadaha iyo aqoonta shaqaalaha, kaas oo tababarkani uu ahaa mid ka mid ah tababarada ay qaataan shaqaalaha dahabshiil ee Kenya sanadkiiba 3 ama 4 jeer, kana uu ahaa intii sanadkan kiisii labaad. Yeeshee waxa uu tababarkani kuwii ka horreeyay uu kaga duwanaa isagoo khaas u ahaa barashada sida la isaga xakameeyo lacagaha aan ku socon sifooyinka aan sharciga waafaqsanayn oo ay ka mid yihiin lacagaha taariibayaasha, lacagaha la soo dhaco, lacagaha burcadbadeeda iyo sidoo kale lacagaha argagixisada. Ana si kooban uga warbixinayo ujeedada uu tababarkani ku saabsanaa madaxa howlgelinta dahabshiil ee Kenya Deeq Cabdilaahi Yaasiin oo loo yaqaano Shaakir, waxaanu hadalkiisa ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim. ujeedada shirku waxay ahayd oo ka soo qayb galay dhammaan shaqaalaha dahabshiil wakiilada laamaha dahabshiil ee Kenya. ujeedaduna waxa ahayd in kor loogu qaado habka shaqaaluhu ay u xoojinayaan aqoontooda iyo dhisidda awoodda shaqaaluhu u leeyihiin inay qabtaan shaqooyinkooda, barashada sharciyada xawlaadda ee caalamka iyo gobolka labadaba in labadaas kor loogu qaado. Seminaarku wuxuu noqon doonaa runtii mid joogto ah. maamulka ayaa hadba baahida loo qabo eeg doona ma 6 bilood ha noqdo ama sanadba ha noqdo ama 3 bilood ha noqdo, laakiin sanadkii hore waad ogeyd waa inagii qabsanay, sanadkan waanu qabsanay, laakiin waa joogto maxaa yeelay mar walba waxaan rabaa in aqoonta shaqaalaha kor loogu qaado oo la kobciyo. aad baan ugu faraxsanahay kooraska aqoon kororsigayga waxa noo dheer barasho badan iyo deegaanku aad u wanaagsan anagoo ku baranay institute-ka ugu qaalisan uguna aqoonta sareeya barashada lacagaha ee Kenya Institute of Monetary Studies. institute-kan wuxuu hoos tagaa Central Bank of Kenya. nimankana tababaray hadda macallimiinta wax barin tababarka bixinaysana waa shaqaalaha iyo macallimiinta Central Bank of Kenya. Cabdilaahi Cabdi Cali, TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, magaalada Nairobi.